part 2 vitaminska qaybtiisii labaad weeyaan vitamin D, vitamin E iyo vitamin K aynu kaga hadlayno videogan insha Allah. faa'iidadooda, cuntooyinka dabiiciga laga helo maxaa ka mid ah, la-aantooduna maxay keeni kartaa dhibaato ah. So nala sii daawo insha Allah videogan. Welcome to Asiya's TV show part 2 and vitaminski aynu ka hadlaynay mawduucii hore qaybtiisii labaad weeyaan. insha Allah dadkii aan soo daawanin kii hore fadlan soo daawada, linkigiisana insha Allah halkan aan idiin soo dhigi doona, xagga dambena waan soo dhigaya, kaa kasoo bilaaba haddii ilaahay ka dhigo. Okay guys, vitaminski saddex baynu ka hadalnay videogii hore. insha Allah videogana saddex baynu ka hadlaynaa si macluumaadka dadka aan loogu badin, maskaxdooduna insha Allah u qaban karayso wixii oo fudud insha Allah. vitamin D ayaynu ka hadlaynaa maanta insha Allah. vitamin D-ga calciferol na waa loo yaqaana. Okay, aad buu muhiim u yahay vitamin D-ga, waynu ognahay waxa weeye halka vitamin ee number 1 doorka ugu weyn ka ciyaaraya in difaaca jirkaagu fiicnaado oo shaqayntiisuna maasha Allah noqoto. waayo shaqada difaaca jirku waxa weeyaan in xanuunadii uu iska celiyo. So ilaahay baa kuu sameeyey difaac dhan jirka oo xanuunadii la dagaalamaya. vitaminka ugu muhiimsan, vitamino badan buu u baahan yahay difaacu jirku, laakiin number 1ku waa vitamin D, vitamin D3 weliba. vitamin D3ga meesha ugu fiican ee laga helo waxa weeyaan cadceedda. Okay, cadceedda oo xilliyaday qabowdahay aad looga faa'iideysto. subaxa hore markay soo baxdo ilaa 8 iska dheh. Okay, halkaas waxa weeyaan ilaa 2 saacadood iyo badh 3 saacadood xilliyada way qabowdahay, iyo markii gelinka dambe 2 saacadood u dambaysa 4 wixii laga bilaabo ilaa intay dhacayso. yacni waanay qabowdahay, iftiinkeeda kugu dhacayo keliya ayaad ka qaadanaysa vitaminkii. alright, xilliyaday kulusha waad iska ilaalin kartaan, waayo wax kastoo faa'iido leh dhibaatana wuu keeni karaya. horena taa waynu uga hadalnay insha Allah. So guys, iyadoo aad weliba ku xisaabtamaysaan inaad kasii horeysiisaan wax duxo aad cuntaan si ay isu caawiyaan labadaas, si oo aad u heshid vitamin D3gaagii. laakiin sideedaba vitamin D markaynu ka hadlayno cuntooyinka qaarna waa laga helaa. cuntooyinka laga helo waxaa kamid ah kalluunka qaar kamid ah sida salmonka, waxaa laga helaa egg yolka, beedka qaybtiisa huruudda ah ee dhexe, iyo cheeseka dee af Soomaali maxaa lagu yidhaahdaa, cheeseka caanaha laga saaray. dee cheesyadu waa noocyo fara badan, so cheeskana waa laga hela guys vitamin D haddii loo baahan yahay. waxyaabaha ku iman karaya, dhibaatooyinka ku iman karaya dadka haddii vitamin D-gu uu ka dhammaado ama low ku noqdo, uu aada u yaraado, qiyaas ma laha guys, mana soo koobi karayno. dadka qaar baa kooma galo suuxa vitamin D la-aan oo aan is ogeyn. dadka ku nool meelaha qabow ee cadceeddu ku yar tahay iyaka aad buu ugu yar yahay. dad fara badan oo Afrika jooga oo cadceed haysta ayuu ku yar yahay. sababtuna waxa weeyaan u bixi maayaan cadceeddii, waa la iska wada ilaalinaya cadceeddii oo laga baqanaya. so taasina waxay keenaysaa hadhow jirkii in vitaminskaasi ka maqnaado. okay, haddaad diidaysid inaad u baxdo cadceedda waa inaad afka ka qaadato. muhiimaddu waxa weeyaan jirkaaga inuu helo baahidii uu u qabay. difaaca jirka oo aada u dhisma, lafaha qofka oo aada u fiicnaada caafimaadkoodu, iyo yacni qofkii xaggii lafaha ka dhisnaado, xaggii ilkaha ka dhisnaado, waxyaabahaasoo dhan maasha Allah tabaaraka Allah way u fiican tahay. vitamin D-guna waxyaabo fara badan oo kale ayuu taageeraya jirkaagii. so muhiimadiisu qiyaas ma laha, laakiin tusaalayaal yaryar waan idinka siinay insha Allah faa'iidooyinka iyo khasaaraha ka iman karaya insha Allah. dhibaatooyinka ka iman karaya hal mid haddaan idinka siiyo, xanuun la yidhaahdo rickets ayaa jira. muxuu yahay xanuunkaasi? waxa weeyaan lafihii oo yacni jilca. caruurtay weliba taasi gaas ku dhacda aad. okay, dumarka markay adigu yaro weynaadaan waxaa ku dhaca lafoo ka shaandhooba, oo iyakii dee calcium ahaan iyo vitamin D ba u baahan yihiin. laakiin xanuunka rickets la yidhaahdo guys caruuruhu u badan yahay. dad badan wuu ku dhacaa, laakiin caruuruhu u badan yahay.
so ku xisaabtama idinkuun maaha caruurtiina way u baahan tahay vitamin D khasab way u baahan yihiin sad ugu baahantiin macaa ilmaha yar dhasha way fiican tahay 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ilmihii in loo dhigo cadceedda xilliyada ay qabowdahay inta dharka laga bixiyo la rogrogo ilmihii loo dhigo cadceedda waxay noo xigaya ka vitamin E oo loo yaqaano tocopherol magacyo kalena way leeyihiin vitamin E gu wuxuu ka mid yahay isaguna vitaminada aad ugu muhiimsan guys maqaarka especially iyo caafimaadkaaga si guud cuntooyinka laga helo maxaa ka mid ah lowska gaar ahaan lowska almondka la yiraahdo sawirkiisa halkan aan idin soo dhigi doona peanutka wad garanaysaan lowska kale laga sameeyo peanut butterka oo kale waa laga helay waxyaabahaas oo dhan vitamin E iyo meelo kale oo fara badan laakiin lowska sideedaba dadka macaanka qaban wuu u fiican yahay oo nafaqo mooyaane kama helayaan wax macaanka iyo kuma jiro faa'iidooyinkiisa ugu muhiimsan waxa ka mid ah inuu caawiyo taageero difaaca jirka so mar dhawad kamaynu hadleen vitamin D oo gabigiisaba vitaminka difaaca jirku yani ku taagan yahay number 1 E-guna wuu kabaya vitaminadooda wuu iskabayaan vitamin E-gu difaaca jirku aad ugu fiican yahay maqaarkana xadaaf buu ugu fiican yahay guys wad ogtihiin vitaminada aad ugu fiican maqaarka waxa ka mid ah A, C iyo E kulluna way fiican yihiin dhibaatooyinka ka iman karaya haddii vitamin E-gu jirkaaga low ku noqdo ama ka dhamaado maxaa ka mid ah nerve damage in neerfahaagii dhaawac gaadho tiro ma laha dadka neerfaha ka cabanaya ee dhakhtar markay u tagaan lasoo siinayo kiniino side effect fara badan leh maxay ahayto oo saa u gariirayo neerfahoodii oo dhan aan controli karayn haddana lama eegayo xaggii vitaminska qofka neerfaha ka cabanaya waxaa laga yaabaa vitamin E-gii baa ka dhamaaday jirkiisa oo vitamin E haddii la siiyo uu xanuunkaasi ka tegi karayo ayaa suuro ah okay so u fiirsada halkaa dhakhtaradiina uula taga anuu macluumaad guud ayaan idin siinaya oo idin noqda iftiin iyo waxaad la soo hor fadhiisan kartaan dhakhtaradiina markaad u tagtaan so qof neerfaha ka cabanaya dhakhtarka waxaad ku tiraahdaan vitamin E-giisa eeg heerku marayo okay inta aan kaniin side effect layo dhibaatooyinka qofkii loo sii geysanin insha Allah videogana waxaanu ku khatimaynaa vitaminka saddexaad aynu ka hadlayno waxa weeye vitamin K ama phylloquinone waa loo yaqaana qiyaas ma laha guys vitaminkaasi cidi kama hadasho cuntooyinu ku jiro cidima sheegto ahamiyaddu leeyahay na qiyaas ma laha cuntooyinka laga heli karayo ku jiro waxa weeyaan cagaaryada af Soomaali ku garan maayo guys I'm sorry kale okay sawiradan idin soo dhigay halkan insha Allah lacalaad ka garataan sawirada kale collard greens spinachka cagaaradaas oo dhan waa laga helayaa waxyaabuhu aad ugu fiican yahayna waxa ka mid ah inuu dhiigga khafiifiyo oo uu ka hortago dhiiggii inuu xinjiro yeesho okay difaac weyn buu uga noqonayaa taa guys faa'iidooyin kale fara badanna wuu leeyahay laakiin isaguna keligii ma fiicna in la qaato K iyo D3 waxa fiican in la israaciyo okay vitamin D3 iyo K way fiican tahay in la israacaan vitaminada horaan idinku sheegay way iskabkabaano way israacaan way isla shaqeeyaan videoyada dambe soo socdeen insha Allah kuwa kaga hadli doona oo aan insha Allah idin sheegi vitamin kasta vitamin ku la shaqeeyo okay insha Allah tusaale yar haddaan idin siiyo calcium lafaha dhisa keligii haddii la qaato maxba qofkii u qaban maayo dhagxaan buu ku noqonayaa kaliyaha u fadhiistay xameetida yaa ka hadla dhibaatooyinka noocaasa dhakhtaradu qofka weyn hadduu ku dhaco lafihii shaandhoobaan ama daciif noqdaan calcium baa loo qoraya lama oranayo vitaminka kale la qaado kaasaa furfuraya calciumkii oo dhagxaan inuu noqdo ka celinaya oo shaqadiisii caadi ka dhigaya so insha Allah waan ka hadli kuwana insha Allah khataraha ka dhalan karaya haddii vitamin K gu jirka uu ka dhamaado
waxa weeyaan hemorrhagic disease waxa la yiraahdo ama dhiig bax fara badan oo aan caadi ahayn. Okay, caruurta yaryar dhashana wuu ku dhaca marmar waa lagu arkaa, laakiin sideedaba haddii uu jiro dhiig bax saa'ida oo qofkii iska dhiig baxayo dhibaatooyinka ka iman karayo vitamin K oo jirkii ka dhamaaday ayay noqon karaysa. wax kalena waa laga yaabaa inay sababi karayso bleedingka. dadka haddii dhiigoodu aad u khafiifana wuu ku dhacaa dhiig bax wuu ku dhacaa, laakiin qofaan dhiiggiisi la khafiifin aan qaadanin kiniinada ama waxyaabaha cunooyinka khafiifiya dhiigga oo uu xanuunkani ku dhaco waa laga yaabaa. So dhakhtarada guys markasta weydiiya, sanad kasta soo baara levelka heerka ay vitaminskiinu marayaan jirkiina. Okay, muhiim bay tahay inaad ogaato markasta heerka vitamin kasta xabad xabad heerkay marayaan, oo kuwa lowga aad afka ka qaadato insha Allah, oo aanad qaadanin multiga isu dhamayska tiran, waayo vitamin jirkaagii ku fara badan haddaad afkiina ka qaadato dhibaato ayaa halkaasna ka imanaysa. So too much vitaminskiina dhib buu leeyahay, la-aantoodiina dhib ayay leeyihiin. wax kasta dhexdhexaadkay ku fiican yihiin. everything khayr al-umuri awsatuha ayaa leeyahay, dhexda wax kasta in laga istaago insha Allah. faa'iidada lagala baxo, khasaarahana la iska ilaaliyo biidni Illaahi tacaala. I hope labada video insha Allah inaad ka faa'iidaysateen. like-ina ha ka bixin idinku aan saarin insha Allah. aadna waa idinku mahadnaqay waqtigiina. Ramadan Kareem. Until the next video. مع السلامة.